siyaasaddu sharciyeynteeda baa hadda laga hadlaya laakiin awal hore waa u jirtay waa la sheegay waxayna ugu jirtay isbitaalada waa laga qaadaya lacagaha tigidhada iyo qaababkaas way jireen laakiin ma sharciyeysnayn cost recovery waa sharciyeynta siyaasadda oo awal meesha ka maqnayd ma aha wax cusub oo la soo kordhiyay ama duplicate ku ah wixii hore u jiray waxaan aad ugu mahad celinayaa dadweynaha ku nool deegaamada uu ka shaqeynaya mashruucan oo iyagu qayb libaax leh ka qaatay in ay barnaamijkan u shaqeeyo waana tallaabo muhiim oo dadka reer Puntland ay caan ku yihiin example weyn waxa uu ah oo mashaariicda mashruuca JESP iyo mashruuca laftigiisa damal caafimaad oo aan dhawaan la kulannay bangiga adduunka oo isaguna gobolka Nugaal ka shaqeeya waxay noo sheegeen in community-gu ay ku darsadeen $500,000 lacagta la mid waa health financing sababtoo ah mashruucu damal caafimaad ma eegayn kamana shaqeynayn dhismayaal ma dhisayn marka inay dadku dhismayaashii dhistaan xarumihii dhistaan ka bacdina service-ka laga sameeyo bay hirgeliyeen waa tallaabo hore loo qaaday gobolka bari oo mashruucan muddo 12 sano uu ka shaqeynayay shaqo badan ka qabtay waxaan uga mahad celinayaa dawladda Sweden Switzerland iyo Save the Children iyaduna qayb muhiim ah ka qaadatay waxaan rajaynaynaa in contribution wanaagsan dadweynuhu ka geystaan soo mashruucaas hawshaas u sii socon lahayd oo hooyadii laga soo qaadi jiray caluula oo doonta lagu soo qaadi jiray inay ku dhasho magaalada Boosaaso aysan dib ugu soo noqon marka anagu la wareegno mashruuca wasaaradda caafimaadku waxay ballan qaadaysaa in hawshaas ay sii socon doonto hadii lahayd waxaan kale oo aan ballan qaadaynaa inaan kor joogtayno barnaamijkaas oo ku shaqeyn lahaa maaliyad ahaan iyo contribution ahaan inaan ku darsanno wixii dhinma oo ka dhinma wixii dadku ku darsadaan oo iyaguna maaragtay ay contribution bixiyaan oo wasaaraddu waxay noqon doontaa mid la socota qaababka isbitaalada iyo maamulada isbitaalada ay u shaqeeyaan iyo financigooda xogaa waxaan moodaa nidaamyadii hore inay madax banaani isla xisaabtan la'aan ay ka jirtay waxaan rajaynaynaa arrintaas inay meesha ka baxdo laga bilaabo maanta wasaaraduna hore ayay u bilowday muddadii 3 bilood ahayd oo aniga iyo wasiirada kale aan joognay waxaan bilownay isla xisaabtan aan la xisaabtamayno maamulada isbitaalada ka jira oo dadweyne dawladda hoos yimaada waxaan example u soo qaadanaynaa isbitaalka magaalada Garowe inkastoo auditor generalku nala joogo wasaaradda caafimaadku waxay leedahay internal audit waxaan gelinay internal audit illadii noo soo baxay tafaasiishooda hal ka gelimayo kulligood waa saxnay waxaana ku socda hadda in nidaamka maaliyadda la saxo hal akoon kaliya ay yeeshaan nidaamka isbitaalada lagu maamulana dhismihiisa hadda uu socdo maadaama halkan gobolka Nugaal iyadu nasiib hadda u heshay mashruuca damal caafimaad uu ka socdo marka mashruuca damal caafimaad ayaa noo hirgeliyay inaan barnaamijkaas aan hirgelino waxaan kale xoog saarnay qaababka isbitaaladu ay u bixiyaan qandaraasyada isbitaalka Garowe dhawaan waxaa laga sameeyay tenderkii ugu horeeyay oo ahaa qaabka ay u gadanayaan adeegyada ay u baahan yihiin ugu horeeyaan adeegyada daawada 5 company 22 company baa ku tartamay oo daawo iibsha awalna hal company baa laga qaadan jiray kadibna waxaa guuleystay hal company oo guddiga qandaraaska isbitaalka ka sameynaya hirgeliyay waxaan rabnaa tallaabooyinka iyo kuwa la mid ah inaan gaarsiino baargaal caluula baladidin iyo muxuu ahaa isku shuban iyo dhammaan gobolka bari oo mashruuca JESP uu ka shaqeynayo cost recovery-una oo siyaasadaas uu hirgelinayo oo aan rabno deegaanada kale Puntland uu hirgelino waxaan rabnaa oo kale wasiirka maaliyadda waa naga tagay in nidaamka FMS-ka aan isbitaalada ka hirgelino oo process-kaas uu noqdo process transparent ah haddii aan sidaa la sameyn gaabka soo baxa lama arki karo lama dhammaystiri karo waxay noqonaysaa wax majhuula oo aan la aqoon dad ka shaqeynaya
mana rabno inay sidaa u noqoto waxaan rabnaa transparency marka la helo baa markaas waxaa imaanaysa taageero waxaa imaanaya contributionkuna wuxuu ka imaanayaa community-ga maaha hooyada iyo dhallaanka iyo caruurtu inay bixin doonaan waxaan rabnaa aakhirka inaan ka gudubnaa caruurta iyo hooyada iyo dhallaanka iyo dadka aan waxba haysan ay kharash laga qaado laakiin waxaan rabnaa in community health financing system uu yeesho deegaanka Puntland waxaan kaloo ku faraxsannahay in cost recovery policy aan maanta noqonay dawladdii ugu horeysay oo ka hirgelisa dhulka Soomaaliya haddeer waxaan arkayay intaan meesha fadhiyay Somaliland oo hadda rabta inay samayso oo hadda aan kaga horeyno arrintaas samaynteeda waxaan kaga horeynaa dawladda federaalka ah oo iyadu waxyaabo kale ku mashquulsan oo dadka caafimaadkiisa ku mashquulsanayn dawladda Puntland waxay ku mashquulsan tahay caafimaadka dadka waxayna ka shaqeysaa dadkeeda inay shaqo u qabato sida ay axwaashoodan u samaysan lahaayeen ugana fikri lahaayeen inay isku filaadaan arrinta kale aan rabo inaan halka ka mention gareeyo waxa weeye maamulada isbitaalada meel kasta ay joogaan waxaan u sheegayaa inay u diyaar garoobaan isla xisaabta qofna isbitaalka uu haysto ma uu yeelan doono waxaad moodaa in muddo dadka isbitaalka jooga lagu ilaaway meelaha ka shaqeeyaan oo soo yeeshay waxaan ognahay in isbitaalada dhanba in mobile-ka qofka maaliyadda u qaabilsan lacagta ku soo dhacdo una ka bixiyo kharashaadka halka arrintaas waa dhamaatay awalna waa dhamaatay markaanu meesha nimi maantana sharci bay noqotay qof hanti dawladeed ay bixiyeen keligii isticmaali kara ma jiro transparency la'aan accountability la'aan waan la xisaabtamay hanti dhowrkuna waan la fadhiyay waxaan rabnaa arrintaas inaan sharciga la tiigsano qofkii hanti qof maskiina uu baxshay oo laga qaaday isagoo si gaar ah u isticmaalo sidii bacdama adduunka waxyaabihii la isu kaalmeyn jiray ay yaraadeen dagaaladii baa batay cudurradii baa batay dawladihii donoriska ah oo wax bixin jiray way yareeyeen waxyaabihii ay siin jireen adduunka intiisi kale waddan walbaaba wuxuu samaystay policy la yiraahdo national first yani waddan walba wuxuu rabaa inuu deeqihii bannaanka uu ku bixin jiray oo waddankiisa gudihiisa u leexiyo ama amnigiisa ku hagaajiyo ama baahiyihiisa kaleba uu ku qabto marka meeshii adduunku waagii hore uu isla noolaan jiray maanta waxa waddanku u socdaa in waddan walbaaba asagu isdabaro annaga marka waxaanu kaga baahan yahay inaanu samayno wax la yiraahdo isku tashi caafimaadku sidaad ogtihiin adduunka waa qaali waay aad buu qaali u yahay health service-ku wadamo yar oo adduunka ka mid ah oo hadda Sweden oo nala joogta ay ka mid tahay baa caafimaadka wuxuu sameeyaa free health coverage laakiin wadamada ugu waaweyn oo Mareykanka ay ka mid yihiin iyo wadamo badan caafimaadku free ma dadku ayaga isdabara laakiin service kale ku daboolaano caymiska iyo waxyaabaha ay ka mid yihiin annaga wadamada Afrikana oo daan la nool oo qayb aan ka nahay meel caafimaadku uu free yahay ma jirtaba wadamada Afrika oo annagu aan qaybta ka nahay marka waxa la rabaa runtii muddo dheer baa gacanta nala soo hayay maanta inaanu isku filaano oo caafimaadkeena iyo waxbarashadeena sidii aan u daboolan lahayn iyo baahiyeena kale oo dhan arrintaas baan maanta halkan u fadhinaa waana midda ugu wanaagsan way ogaada
qofku markuu isku tashado waa marka uu gaaro horumarka ugu fiican oo uu samayn karo muddo kooban gacanta waa lagu hayn karaa hadda ilmahaaga ilaa 20 waa dhici karta inaad gacanta haysid 20 sano intuu ka gaarayo laakiin 21 maalinkuu gaaro waxaad leedahay isdabar baad leedahay ama adigiibaaba waxaad ka filaysaa booskaa ku jirtay inuu buuxiyo marka hadda cid weligeed dhabarka lagu sidi karaa ma jirto waxaanu la kaga baahan yahay runtii tallaabadan tallaabo aad u fiican oo wasaaradda iyo runtii aan aad uga mahad celinayo sababta waa direction fiican waay inaanu maanta ummadeenna u jahayno inaanan ku tiirsanaan deeq bannaanka mar walba maskaxdii baa waxaan ka noqonnay howlgab maskaxdii baa waxaan ka noqonnay howlgab sababta wax kasta oo yar waxaanu rabnaa dad kale inay noo qabtaan runtii wasaaradda taa waa uga mahad celinayaa mashruucan bilowdayna waxaan rajaynayaa inuu noqdo mashruuc guulaystay oo Soomaaliya inteeda kale ay nooga dayato innagu insha Allah ka wasaaradda maaliyadda waxaan rabnaa inaan qaybteeda qaadano wixii maaragtay maamulka iyo maaliyadda baadama hadda lacag involved ay tahay wixii system ah oo maamulka maaliyadda ku saabsan wasaaradda caafimaadkana ka caawinaan rabnaa insha Allah miisaaniyadaheena dambe oo soo socda ayaga laftigooda waxaan rabnaa in laga arko caafimaadka wixii wasaaradda maaliyaddu ay contribution uga samayn lahayd sababtoo ah dhammaanteen waxa weeye waa iskaalmaynaynaa community isla nool baanu noqonaynaa gacmana waxaa la yiraahdaa wadajir bay wax ku gooyaan marka hay-adaha dawladda oo anigu wasaaradda maaliyadda aan matalo wasaaradda caafimaadku ay joogto hay-adihii kale dawladda ay joogaan insha Allah si team work aan wada shaqayn doonaa